bilow filimka waxaana la soo bandhigay aasa maanta aad bay u faraxsaneed sababta hooyadii aabaheeda yumaysi iskuulka ugu soo boqdaan waxayna qorsheen waqtigooda la qaataan aasa barfuun bay gacanta ku haysaa aasa si farxad leh ugu socotay gaariga markii gaari si xawaar leh ku socday dhinac kale yimi ku dhuftay gaari hooyadeedii aabaheeda dhammaan farxadii dhan way burburtay hadda muuqaalka xisbitaalka halkaasoo iyid aasa ugu timid waxayna ogeyd in hooyadeedii aabaheed labadooda ay geeriyoodeen aasa waxay mar meesha murugadan darteeda si loo fuliy habraaca sharciga iyadu waxay waca gabadhii labadoo habaryarta aasa dibna aaska la qabta hadda aaska qof walba wuxuu ka hadlay aasa sababta waxay gabar dhalinyaro inlanka hooyala ayaa bilan kastoo qoyskeeda dabadan ku jireen qofna diyaar inuu qaado mas-uuliyadda aasa xitaa iyadii maqaadinaysa markii maakii horinta artay waxay aad u xumaatay iyadoo weligeedii jeclaan jirta waxayna go-aansatay mas-uuliyadda gabadheeda walaasha aasa ee qaada waxayna u sheegtay in haddeer nacab hooyada balse haddii rabto la joogi kartaa markii tan maqshinda aasa ilmi ka buuxsama waxayna go-aansatay in jirta maakii sababta iyada keliya ka fikir aasa dibna aaska aasa waxay tagtay guriga maakii daxyar kasoo qaadatay maakii markii guriga horta waxay aasa u sheegay inay sanda gudahooda banaanka ay joogto kadibna gudaha usoo gasho guriga maakii waxaa ka buuxa laabdan meel istaag way karweysay wax walba isku dhex yacsay maakii waxay tusaysaa ashan fusha qaboojay meelaha kunash waxay bilaawada shaqo waxay wacdaa saaxiibteeda sidoo kale madaxdeeda waxay saaxiibteeda u sheegtay inay korsato gabadheeda walaasheeda markii saaxiibteeda yarta maqshuulaadka sababta maakii meel cusqaydaasi waxay qaadan kartaa mas-uuliyad kasta saaxiibteedii waxay xasuustay markii weydiismasadeeda hal maalin joogtay maakii way diiday haddaba qodobka muhiimka waxay in si sharci ku korsato aasa madaxdeeda waxay kula toonaysa in saaxiibkeeda rashiinka wuxuu ahaa qaran weyn wuxuuna garan dhammaan sharciyada halkaasoo markii subaxdii xigta u yimaaday wuxuuna arkaa maakii hurdo ku jirta aasa waxay aadaa iskuulka markii iskuulka gaarto waxay la kulantay saaxiibteedii ugu fiican dambe meel gurigooda waxay muujinaysaa tacsiig geeriy hooyadeed aabaheeda laakiin aanse muddo naxariistaasi markay artay dhaqanka saaxiibteedu ay baqdo waxayna ku tiri waan ku xumaa muddo dheermaanad imaanin sidaa darteeda waxaa macalinka kuu sheegay xaaladaada intaas dhexdeeda macalinka wuxuu yimid markii aragtay aas waxay bilaabaysa naxdhoos muujis waxayna tiri iga ardaydoo dhan ee kale adigu caad wuxuna kugu dhacay sidaa darteeda carruurta midna kuma dhibi doon wuxuu kaa caawin doona casharadaada hore barato markay maqsata macalinka aas waxay noqotay mid murugo badan waxayna macalinka u sheegtay in muddo bil ayaa iskuulka maqana waxaa nolosha iskuulka caadi ku socoto adigana wax mid halkaasi ka tagtay markaa jidka u aragta saaxiibtaada waxay sidoo kale kuu sheegtay inay ku dhaxato waqtigu wax mid aad murugo badan u yahaa waxay tagtay guriga hooyadeeda iyo aabaheeda waxayna bilaabaysa in albaabka garaacdo markii albaabka muddada laga furo dariskeeda gadaal midoo wacay aas waxay meelaysan hooyadeeda waxay gadaal u diisatay waxayna aragtay inay tahay dariskeeda dibna aas waxay meer beesho waxayna xasuustay hooyadii dhimantay albaabka fur lahaa hadda murugo darteeda waxay bilaabaysa in magaalada dhex socoto dhinac kale waxaana la muujinaa maakiyo la kulmaysa shiinka si sharci kursato aasa shiinka sidoo kale waxa saaxiibkeeda wuxuuna dhac go-aanka maakiyo sababtay kula tageen waxay maakiyo doon inay qaato mas-uuliyadda kuulkii carruurta wuxuu weydiiyey sidaas badduwan sidaan kugu dhacay maakiyo waxay kale ka jawaab kartaa markay qalbiga taawato markaan arkay aasa halkaa shiinku wuxuu meel kula tagan ilaa haddana si sharci ku kursan aasa haddii ay ka shalaynayso go-aanka bedeli kartaa laakiin maakiyo waxay go'aatay in si sharci kursato aasa maakiyo waxay kulanka sida u dhimaysa gurigeedii kulata sababta waxay filaysay in waqtiga aasa ka soo laaban iskuulka la gaaray laakiin kadib sugtaan dhada guriga dibadiisa markii aasa iskuulku salaabanaysa qalbigeeda ee bilaab inuu walaaco ka hor intaysan guriga bixisay u raadisay aasa miinkii ku salaabataa guriga maakiyo si kalka caawuudisay maxaa kusoo aasa muddada u sheegto wax kastoo maanta ku dhacaasa waxay isku dayaysa inay ka qariso waxay tidhi waxaan keliya wadada guriga maakiyo waxay tidhi marka haddii san kugu dhacma dhibaato gash isoo wac waxaan kaa walwalsanaa markay habeen noqotay aasa waxay aad murugata dhaqankii subaxnimada saa darteeda waxay saaxiibteeda u caraligelin siisay noloshidaas ayaa mana ku socotay kadib maakiyo waxay aasa keentay gurigeedii hore waxay doonaysa in aasa kasoo roosto dhammaan waxyaabihii muhiimka halkaasi ku jiray si ay si joogta ugu gooto guri maakiyo intii waxay xiriirisay waxayna arkan khudaar la jar aasa waxay maakiyo u sheegtay inaysan jeclaan khudaarta la jaray laakiin hooyadeedii marka ay samaysay khudaartaasi ayay bilaad inay jeclaato maakiyo iyada sidoo kale waxay sheegaysa inay jeclaan khudaarta la jarjay gebi ahaanba dibna aasa waxay tiri fadlan hal isku day markii maakiyo dhimin sida aag u dhimisay runta way fiicneed dibna maakiyo waxay bilaabaysa inay jeclaato khudaarta la jaray taas kadib aasa waxay maakiyo weydiisay maxaa hooyadu jeclamas maxay sababta ku nacmineed maal hadda ay sheegtay naceebkaa u yaran maakiyo waxay ku tidhi naceebka hooyadu akhu weligii hilmaam doono xitaa markii weligii allah ma badan fikirkayga maxaa hadu badilay aasa waxay tidhi eeg wax walba ku dhacayaan iskudayga hore uma jeclaan khudaarta iskuday kadibna waa jeclaatay maakiyo gacmay qabataa waxayna ku tiri khudaarta jaray nolosheedii tiri qaweynaya u dhexeeya si aan u dareemka nolosheedii daala markaan arko sidoo kale adeeg ma fahamka naceebka igu dhex nool haddaba waxay gurigoodii ku salaatan subaxdeed aas waxay shaafasax maalinta fasax waxay bilaabaysa inay guriga niifso markay maagiyo soo toosto waxay leedahay inay aragto haddaba guriga meel badan lagu socon karo waxba si wanaagsan loo habeeyey aasa waxay u sheegaysa inaysan ka walwalin dhammaan hawsha ilaa hadda aniga qaban laakiin markaas maakiyo waxay maatay inay mas-uuliyadii saarta aas hore u qaadatay hawsha dhaqida dharka dibna aas waxay ku tiri maakiyo hawlwalan aniga waxaan u qabana farxadeyda maakiyo shaqada maanta aad bay u jeclaatay sidii hadeed maakiyo waxay aasa facebook kulkulta dareenkeeda habeenkii maakiyo waxay casuuntay madaxdeeda guriga halkaasoo iyadii aasa markii hore isugu kulmeen labadoodii waxay jeclaan waqti isla qaateen nolosha caadi ku socotay waxaana aasana sidoo kale hadda gashay iskuul sare markii iskuulka sare ay gashay aas waxay bilaasan gurigeedii cilmi badan dareento sababta saaxiibada hore waxay heleen saaxiibo cusub waxay artay qarayin guriga maakiyo weydiinaysa dhab ahaantii saddexda qorobees ee laga isticmaal lacagta akoonka isla markaana waqtigaasi qaraya kala dareed carruurka erka maakiyo ku xugmaysa aasa
sidaa darteedu ku yiri laakiin maakiyo waxay isku dayaysaa inay lacagtaas isticmaalin nasiibna waqtiga saxda ah ee guriga waxaan u sheegtay qareenka daryeelka carruurta dhab ahaantii aniga waxaan isticmaalay 3 laqaas waxaan aad u jeclaa muusiga sidaa darteeda waxaan u baahan laptop gaar lagu sameeyo muusigada sidaa darteed lacagtaas ugu qorsheeyay ku xumo maakiyo waxaan rabaa inaan kuu sheego laakiin waxaan u maleynayay in adeegsiga hooyadii iyo dadin ay suux qaali ah sidaa darteed maan kuu sheegay markay maqsataas qareenka daryeelka carruurta ku xumo wuxuu raagin u soo diray maakiyo markii qareenkii baxsay ayida aasiya timid halkaas labadii u ka xisaaca shalkaas ii weydiisay in nolosheedu naftada dhibaato jirto labadoodii ku qanacsanaan kadib ayadii way nasatay koortaysan bixin ayadu waxay siisay boorso maakiyo kaasoo lagu gurguru asa waxayna ku tiri markii ku haboonaata si aasa markii maakiyo gurti madan boorso farta waxay ku artay buug hooyadii ay qoratay buuggaas wax baan qoot waxayna jeclaa inaas markay bilaasan iskuulka sare gasho laakiin koortaysan tegin ay geeratay maakiyo waxay dareemaysaa shucuur markay akhris buuggaasi masiina buuggaas aasa sababta waxay dareemaysaa buuggaasi qalab sameyn doona aasa kadib waqti dheer aas waxay bilaasan nolosheedii ay ku soo noqoto waxay sidoo kale ku biirtay koox muusiga iskuulka ah maalin aasa waxay cursaysa cusub waxayna u keentay maakiyo intuu aad bay ficneed laakiin malaha qaar waxaa ku jira qaladaad badan maakiyo ka caawisa in hagaajiso caawinaada maakiyo si wanaagsan u hagaagtay markii aasa hortii saaxiibada ku qaadaystaasi qof walba aad buu jecel aas aad bay faraxday hadda aasa waxay go'aansan nolosha maakiyo sidoo kale caadi ka dhigto waxay maakiyo xoog ku xisma kabada halkaasoo ruwaayadii maakiyo sanad dheer ay qortay wilaha kuu loo iibiyo markii maakiyo maktabad joogtay taageero waxay bilaabeen saxiix ka qaataan sheenkii saaxiibka maakiyo sidoo kale halkaas joogay kaasoo markuu saxiix ka qaadana sidoo kale ka codsanaa marka la kulmo maakiyo waxay ogaatay maakiyo aad bay farxay markii dadkii sanadba la kulantay waxayna maantaasi dhac sababta aasa darteeda fiidkii maakiyo waxay la bax saaxiibkeeda shingo laakiin halkaas waxay kala hadlaysaa aasha halkay kala hadlay nolosheeda tani waxay muujinaysaa si fiican u qaatay mas'uuliyadda aasa waxay sidoo kale lahayd shingo wax ku saabsan buug hooyada aasa ay qortay shingo wuxuu kula tahay in waqtigeedii ku habboon siiso muuqaalku wuxuu u guuray maalinta xitaa halkaas ku aragno dhammaan iskuulka si weyn umaani aasa heesta ay qaaday xitaa heestii lagu jiray boorka hogeysiiska qof walba wuxuu aqoon qof walba farxad buu dareemay laakiin aasa aad u farxay waxayna doonaysaa wax qoto fiican markay guriga timid waxay aragtay in shingo maanta guriga min la kulmaakiyo aad bay u farxay in labadoodii aragto waxayna u tatay waxayna weydiisay marka la soo noqoteen si taas loo fogaashinka iskuurdiisa u weydiiyey ma akhrid buug hooyada ku siisay aasa way laabtay markay taas maqashay waxay weydiisay buugkaasi ku yarkaas lagu ogaaday in maakiyo weli buug ay siisin aasa haddaba arrinta markay caddaatay maakiyo aasa ay siisay buugkii arrinta awgeeda maakiyo waxay ka baqaysay marka la dareento shucuur markaasi aasa waxay maakiyo weydiisay maxaa maalintaas u aqbashay maakiyo waxay tiri ma garanay maalinta qofna si furun ku aqbalay subaxdii ixtaas iskuulka matag inkastoo ay imtixaanka guddi maanta u jiray macalinka maakiyo iskuulka u yeeray laakiin maakiyo waxay aasa iskuulka tagtay laakiin ay ka maqan tahay maakiyo waxay ku soo socdaa guri hooyadeeda hooyada maakiyo waxay u sheegaysaa aasa aad bay u nijisneed waxay u baahan tahay markay taasi maqshay maakiyo waxay weydiisay su'aal hoos sidoo loo koriyo carruurta hooyada maakiyo waxay su'aasha qaadatay waxay weydiisay maxaa umanaysa maniga ku kirsi fiican markay su'aasha weydiisay waxaa nala soo bandhigay noloshii hore maakiyo loo muujiyey in hooyada maakiyo waxay dhammaan shaqayn jirtay maakiyo waxaa dhammaantii kori hooyada aasa hooyada walaasheeda waxay nolol ku canaan jirtay maakiyo shaqo samayn weysay arrimaha darteeda weliga ma isu koban hooyada aasa taasoo ay dhammaantay ahayd qof xasiloon kala geesi ah waxay sidoo kale hooyadeeda u sheegtay inaysan aad u urgay markay walaasheedii garootay waxay aragtay haweeney meel fatag rawaaga hooyadeeda waxay orod u tagtay haweenaas waxay aragtay inay ahayd maakiyo markay aragtay maakiyo waxay silaab u weydiisay sidee halka ku joogtaa maakiyo waxay su'aal ku weydiisay aniga waxaan ku weydiin lahaa waad isku joogtaa waqtigaani sidee halka ku timid aasa waxay iska fogeysay su'aasha maakiyo waxay u sheegtay inaysan akhrin buug hooyada sababta casib bay ka qabta wax ku qoran waxayna maakiyo u sheegtay in hooyada si fiican u garanayn weli ma gaarin taa hooyada si fiican u fahmayso sidaas awgeed waxay isku dayaysaa inay ogaato xasuusteeda markay taasi maqashay maakiyo waxay tiri waxaas waxaa muujinaysa in hooyada yahay qof wanaagsan maanta dhammaan nacayb walaasheeda qalbiga maakiyo ka baxa taasi darteedii hadda maakiyo aasa waxay aaday qabriga hooyada aasa aad bay iida hooyada aabaheeda ka maqan maanta maakiyo sidoo kale si buuxda u garab taagan tahay wax khutuusiisa waxaana la wajin nolosha aasa caadi noqotay sababta maakiyo sababta kooxda muusiga iskuulka ku jirtay waxay bilaw inay caan noqoto hadda waxay taa waxay akhriday buug hooyadeeda taasoo ku qoran hooyadii dunaysa in arto bulaheeda saa darteeda rabitaanka hooyada aasa ku fulisay maakiyo waxay sidoo kale aad ugu fanaysaa markay daawatay muuqaalada codkeeda sheekada filimka maanta halkaasi u ka dhammaanaysaa dagaalkan noo soo gaar saaxiib aad iyo aad baa u mahadsan tahay muuqaalka noo gaara jela ka fikrada dawrus fikra kuwen aad iyo aad baa u mahadsan tahay